horta maxamud sayid waxa uu yahay in la ogaado waa lagama maarmaan. maxamud sayid halkii sano oo ugu dambeysay waxaa loo haystaa madax furasho gabadhii selfiyooda romano la lahaa oo kale weeye madax furasho Jubbaland baa u haysata. wuxuu isku dayay inuu ka baxsado oo wax walba oo karaankiisa oo uga baxsan karo isku dayay Nairobi oo isku dayay asoo jooga baasaboorka laga xareystay waa ka gudbay Madeira buu tagay askar Kenyaana waadiye ka qabato afarta gees ka fariisatay waa meel uu gudbay meel uu dhaqaaqo waa loo diiday. hadda markii Nairobi laga soo celinayo oo meesha ka hadlaya waa gabadhaas Talyaaniga oo madax furashada loo haysto badbaadada u baahneed oo kale weeye. dawladda federaalka ka codsanayna ninkaas in madax furashada loo haysta laga soo badbaadiyo maxay ahayd ma aha mas'uuliyadu ku shaqeynaya ma jira hogaamiye kooxeed aadan ku darsanin ciidan iyo awood aad isula imaadeen aan la arag sabab ku xigeen loogu noqon karaa ma jirta asaga un baad adeego u tahay. maxamud sayid marka waa ninkaas maxay ahayd maanta madax furashada loo haysto gabadhaas Talyaaniga oo la furtay lamid ah. waxaan ku talin lahaa dawladda Soomaaliya hadiiba dalkaasi isbedel laga sameeynayo ninkaasi intaan la dilin sida loo badbaadin lahaa in loo badbaadiyo oo asaga maxay ahayd lafihiisa koow lagu tashtay in la badbaadiyo. intaa kadib dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland aad bay u daaleen dawladda goboleedyada kale oo Soomaaliya way dhaqaaqeen waxba u qabsoomay. dawladda federaalka horumar fiican bay ku guuleysatay oo dalka ay ka qabatay. dawlad goboleedyadana waa horumareen oo dhismaha ay dhisay yihiin oo dawlad goboleedyada loo dhisay dhaqaale ahaan bay u horumareen amni ahaan bay u horumareen siyaasad ahaan bay u horumareen oo dawladda Soomaaliya ku xirmeen. marka meeshaas ayada ah oo cadowgu haysta waxaan rabnaa dadweynaha Soomaaliyeed inay hadlaan oo ay ka hadlaan oo dawladda federaalka waxay la qaban kartaa ay la qabato oo codkooda ay miidiyaha ku baahiyaan oo meel kasta ay u istaagaan dalkaasi in la xoreeyo oo ummadda haysata laga xoreeyo dawladaha shisheeyahoo goosanayana laga soo dhiciya oo ay la mid noqdaan dawlad goboleedyada Soomaaliyeed oo dawladda federaalka maanta wax la qaybsanaya ama qaybka ka ah ama taageeraya ama garab taagan in lagu soo biiriyaan oo codsanaynaa ummadana inay taas u istaagta. dadkan waxaan leeyahay is abaabuleena hogaamiye dhaqameedyada Soomaaliyeed ee deegaankaas ka soo jeeda dadka inay abaabulaan oo ay kiciyaan oo u diyaariyaan in maxay ahayd shirar la qabsada oo la tashta oo la midooba oo loo midooba sidii maxay ahayd maalinta maxay ahayd Ilaahay uu suuro geliyo oo dalkaasi in wax laga bedela naloo suuro geliyo dad isku tashtay oo heshiis ah oo midaysan oo taladooda midaysan tahay qaabkay wax ku dhisan lahaayeen oo ayaga laftooda iswaafaqsan oo dib u heshiistii dhamaystay inay noqdaan baan ka rabnaa. aad iyo aad baan waxaan ugu celcelinayaa dawladda federaalka meesha dhibaato ka taagan inayna caawiso. haddaanu reer Jubbaland nahay dawladda federaalka ka codsanaynaa in isbedel gobolkaas laga keena. aad baa u mahadsantihiin.